bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dadkana daawanayo ku soo dhowaada barnaamijka arrimaha siyaasadda warqaad oo xiliyadan oo kale aad la socotaan qodobada maanta aynu idin hayno waxa ugu waaweyn dowladda federaalka Soomaaliya oo bohol siyaasadeed u dhigaysa Axmed Madoobe si meesha looga saaro kadib natiijadii shalay ee Puntland maxaad ka og tahay qorshaha adag ee uu isku difaacayo Axmed Madoobe xiriirka Puntland iyo dowladda federaalka oo marxalad hor la galay kadib markii meesha uu ka baxay Cabdiweli Gaas suurtagal ma tahay in madaxweynadan uu ka aragti fog yahay Cabdiweli Gaas marka loo eego xiriirka dowladda federaalka iyo Puntland xog dheeraada iyo falaqeyn arrintan ku saabsan ayaynu idin haynaa Ingiriiska iyo Ruushka oo isku haysta saldhig military oo laga hirgeliyo Somaliland xilli UK ay ku howlan tahay xagaldaacinta dowladnimada Soomaaliya warbixin dheeraad ayaanu idin haynaa oo daawadayaal barnaamijka idinkugu soo gudbin doona dhigadna warcad ayay ka soo saartay khilaafka weli ka dhaxaloosan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada oo noqday kuwa sii tabar yareeyay u diyaar garooba daawadayaal qodobadaas iyo kuwa kale oo dhammaystiran oo goordho aad daawataan ku soo dhawow Dilaal abka Dilaal waxa uu ka caawinayaa inaad wax iska iibiso ama aad iibsato adigoo gurigaaga jooga si fudud isaga iibi geli sawirka shayga aad iibinayso geli faahfaahinta shayga aad iibsanayso ku dhufo post la hadal iibsadaha ama iibiyaha adigoo isticmaalaya qaybta wada hadalka lana wadaag sawirro iyo location-ka ka dejiso abka Dilaal Google Play Store